qareen u dhashay wadanka Kenya ayaa madaxweynaha wadanka Mareykanka Barack Obama waxa uu ka codsaday in uu u guuriyo gabadhiisa isagoona u ballan qaaday madaxweyne Obama in uu siin doono xoolo fara badan. wariyaha telefishinka Somali News Aadan Jama ayaa warbixintan inoo diyaariyay. qareenkan Kenyaanka ayaa 50 neef oo lo ah, 70 neef oo ida ah iyo 30 neef oo riya ah oo gabaati ahaan ama yarad ahaan ugu talagalay ku dalbaday gabadhan uu dhalay madaxweyne Obama. Felix Kibrona ayaa sheegay in riyadiisu ay tahay inuu guursado gabadhan Obama ee lagu magacaabo Malia Obama, isagoo sheegay in arrintan uu kala xaajoon doono madaxweyne Obama marka uu booqanayo Kenya bisha July ee sanadkan. Ma markii ugu horeysay ee qareenkan arrin dadka uu kaga yaabsado isagoo bishii October ee sanadkii hore uu xareeyay dacwad uu ku dalbanayay in William Ruto waa madaxweyne ku-xigeenka Kenya ee loo dhaariyo madaxweynaha Kenya kadib markii Uhuru Kenyatta laga dalbaday maxkamadda dambiyada caalamiga ah si loo dhageysto dacwad loo haystay. wuxuu sheegay in aan wax gabar ah sheeko wadaag la noqon ama uusan shokaansan tan iyo markii uu gabadhan caashaqay oo ahayd sanadii 2008 isagoo qoyska uu ka soo jeedana arrintan ku wargeliyay. Kibrona waxa uu sheegay inuu Obama u qorayo warqad una gudbin doono marka uu Kenya yimaado si uu ugu muujiyo dareenkiisa isagoo ugu sii dhiibi doona safiirka Mareykanka ee Nairobi u jooga. Malia ayaa la sheegay inay ku wehelin doonto safarka Behed sanadii 2002 ayaana lagu magacaabi jiray Godwin Kimoj. waxa uu 40 riya iyo 20 lo ah ku dalbaday Chelsea Clinton oo uu dhalay madaxweyne hore ee dalkaasi Mareykanka Bill Clinton, inkastoo isagoo weli rajadaas ama riyadaasi qaba uu dhintay kadib markii uu maroodi ku helay kaymo ku yaala dalkaasi Kenya.